Asalaamu calaykum saaxiibayaal, waa maalin cusub, saacad cusub, fiidiyow cusub iyo qayb cusub. Waa qaybtii sagaalaad ee buugga qisooyinka nebiyada, waana qaybtii u dambeysay buuggan. Halkani waa hoyga buugaagta taxanaha ee nooc walba leh. Fadlan waxa aan kaaga codsanayaa in aad channelka subscribe garayso. Halkan waxaa joogto ugu soo gudbinaa buugaaga xiriir ah oo aan halbogna laga boodayn. Dadka qaar waxa ay dhegaystaan soo koobida buugta, laakiin malaha wax faa'iido ah buug la soo koobay. Buugga aad halkan ka dhegaysatay waxa ugu xisaabtamaysaa in aad akhrisay oo kale. Marka joogtayso barteena YouTube ee Ogaalsida Media, maantana waxaa akhrin doona qisadii Nebi Muuse. Marka fadlan la soco buugaagta aan halkan ku soo gudbino, waxayna ku bilaabaynaysaa sidan qisadu. Nebi Muuse iyo Haaruun. Nebi Yacquub markii uu galay Masar isaga iyo carruurtiisa oo ay deegaan ku yeesheen, waxaa Nebi Yacquub lagu naanaysay Israa'iil. Kadib markii ay geeriyoodeen Nebi Yacquub iyo carruurtiisa oo uu ku jiro Nebi Yuusuf, waxaa batay tarantii Israa'iil. Yacquub waxaana duriyadiisa loo bixiyey reer bani Israa'iil, yacnii tafiirtii ka farcamay Nebi Yacquub. Waxaa arrinkaasi cabsi geliyey Fircoon oo ahaa boqorkii Masar wakhtigaasi. Wuxuu bilaabay in uu la wareego hantidooda iyo in uu nolosha ku ciriiriyo. Waxaa la sheegaa in Fircoon uu mar ku riyooday dab ka soo baxay Shaam oo gubayay guryaha Masar iyo qasrigiisa, oo haddana aan waxba gaarsiin guryaha reer bani Israa'iil. Faaliyayaashii waxay u sheegeen in wiil reer bani Israa'iil ah oo dhalan doono uu gacantiisa ku baabiin doono boqortooyada Fircoon. Fircoon wuxuu amar ku bixiyey in la dilo wiil kasta oo reer bani Israa'iil ah oo dhasha. Ciidankii Fircoon ayaa bilaabay in ay dilaan ciyaalka la dhalo. Fircoon ayaa mar kale yidhi, haddii aynu layno dhammaan wiilasha reer bani Israa'iil u dhasha, cid noo shaqaysa ayaa la waayi doonaa. Waxaa loo soo jeediyey in sanad uu wax dilo, sanadka xigana la iska daayo. Nebi Haaruun waxa uu dhashay sanadka aan dilka jirin. Kadib Nebi Muuse waxa uu dhashay sanadkii carruurta la layn jiray. Haddaba hooyadii Nebi Muuse maxay samaysay? Allah subxaanahu wa tacaala ayaa u waxyooday hooyadii Nebi Muuse in ay ku riddo sanduuq isaga oo naas nuug ah, kadibna ay ku riddo webiga oo aysan baqin. Allah ayaa u ballanqaaday in uu xifdinayo oo uu soo celin doono isaga oo nebi ah. Kadib waxaa gacanta ku dhigay xaaska Fircoon oo aad ugu faraxday, una sheegtay Fircoon in uusan dilin, laga yaabee in uu wax taro ama ay ilmo ka dhigtaan. Kadib waxaa loo yeeray dumarkii wax nuujin karay, gebbigoodana wuu diiday ilmihii yaraa. Ilayn Alle ayaa ka xarimaye. Nebi Muuse walaashiisa oo kor kala socotay arrinta naas nuujinta ayaa ku tiri, ma idin tusaa reer ilmaha nuujiya oo daryeela? Kadib Nebi Muuse waxa uu ku soo laabtay hooyadii oo nuujisay, iyadoo lacag ku qaadanaysay arrinkaasi. Nebi Muuse markii uu korayey waxa uu ku noolaa guriga Fircoon. Halkaas ayuuna ku soo barbaaray. Shaqaalaha way yaqaaneen reer bani Israa'iil, iyaguna qisadiisa way maqleen. Nebi Muuse markii uu kobcay oo nin weyn oo xooggan noqday, maalin maalmaha ka mid ah, isaga oo magaalada dhex maraya ayuu maqlay nin leh, Armuusow isoo gaar. Markii uu eegay, waxa uu arkay laba nin oo gorodda iskula jira, dagaalamaya. Mid uu yahay qoomkii Fircoonka, kalena reer bani Israa'iil. Nebi Muuse oo doonaya in uu ka qabto ninkii reer bani Israa'iilkii kale ee qibdiga ahaa, kaas oo dulminayay ninkii reer bani Israa'iil, wuxuu ku dhuftay feer. Halkaas ayuuna ku geeriyooday ninkii qibdiga ahaa. Nebi Muuse markii ay xaaladiisu degtay, wuxuu ka shalayay waxa uu sameeyey, wuxuuna yidhi, kani waa camalka shaydaanka, isagu waa cadow daran. Nebi Muuse ayaa dembi dhaaf weydiistay Allah. Muddo kadib, Nebi Muuse oo magaalada dhex socda oo ka baqaya in la soo sheego, ayaa waxa uu arkay isla ninkii kol hore uu ka qabtay ninkii qibdiga ahaa oo haddana nin kale ku dhiggan. Markii uu Nebi Muuse u soo dhowaaday, ayaa ninkii reer bani Israa'iil yidhi, Muusow, ma waxaad doonaysaa inaad i disho sidii aad u dishay ninkii hore? Ninkii qibdiga ahaa ayaa warkaas maqlay, wuxuuna farta ka saaray Fircoon, wuxuuna u sheegay in ninkii hore ee la dilay uu ka dambeeyo Muuse. Fircoon waxa uu amar ku bixiyey in la dilo Nebi Muuse. Nin ka mid ahaa dadkii maqlay amarka
dilka nebi muuse oo ordaya ayaa u yimid nebi muuse wuxuuna u sheegay in la doonayo in la dilo haddii la arko, wuxuuna ugu naseexeeyey in uu ka tago magaalada. nebi muuse markii loo sheegay warkaasi wuxuu si degdeg ah uga baxay magaaladii. isaga oo sii socda wuxuu ku ducaystay, rabbiyow iga badbaadi qowmka daalimiinta ah. allah subxaanahu wa tacaala waa uu ka badbaadiyey nebi muuse mixnadii daba socotay, wuxuuna qabtay xaggaa iyo madyan. nebi muuse waxa uu ka soo tegay masar isagoon ogayn halka uu caga dhigan doono. waxa uu talo saartay allah, waxa uuna ka baryay in uu badbaadiyo. allah ayaa ku simay nebi muuse dhulka madyan. kadib safar dheer iyo daal aad u daran, waxa uu dul tegay ceel ay ku hareeraysan yihiin dad badan oo doonaya in ay ka waraabistaan xoolahooda. wuxuu kaloo nebi muuse meesha ku arkay 2 hablood oo iyana taagan meel ka fog dadka, balse raba in ay xoolahooda waraabiyaan. markaas ayuu nebi muuse weydiiyey 2dii hablood, arrinkiinu muxuu yahay? kolkaas bay ku warceliyeen, annagu wakhtiga ay dadkan xoolahooda waraabistaan baa waraabsan karnaa, aabbahayna waa oday weyn. nebi muuse oo u damqaday hablihii ayaa u waraabiyey xoolihii. kadibna nebi muuse wuxuu dhaqaajiyey harkii. markaas alle baryey oo yidhi, rabbiyow wixii aad iigu tala gashay ee arsaaqad iyo cunno ah waan u baahannahay. kadib hablihii oo ku laabtay gurigooda ayaa odaygii dhalay aad u la yaabay sidan dhaqsaha leh ee ay ku soo laabteen hablaha. waxa uu weydiiyey waxa maanta helay. markaas bay u sheegeen in nin xooggan uu xoolahooda u waraabiyey, sidaasna ay ku soo degdegeen. kadib odaygii wuxuu u diray mid ka mid ah hablihiisa in ay guriga keento. waxaa timid gabadhii oo xishood ku socota, waxayna ku tiri nebi muuse, aabbahay waxa uu kugu wacayaa in uu kaaga abaalgudo wanaaggii aad noo gashay. nebi muuse ayaa aqbalay odayga u yeeraya, wuxuuna tegey gurigiisa. kolkii uu u yimid odaygii oo uu ugu warramay sheekadiisa, ayaa odaygii ku yidhi, ha cabsan, waad ka badbaaday daalimiinta. nebi muuse waxa uu ka mid noqday reerkii. mid ka mid ah hablihii baa tidhi, aabbe shaqa sii ninkan. nin aad shaqa siiso waxaa u fiican mid xooggan oo la aamini karo. odayga halkaa waxa uu ka arkay in gabadhani ay calmatay ninkan. kolkaas buu odayga yidhi, muuse waxaan doonayaa in aan kuu guuriyo mid ka mid ah hablahayga, inaad ii shaqayso 8 sannadood. haddii aad 10 sano xoolaha ii raacdo waad samafashay, aniguna ma doonayo in aan ku dhibo. muddadaas dheer waxaan ku wada joogi doonnaa wanaag. nebi muuse ayaan yidhi, heshiiskaasi aniga iyo adiga ayuu noo dhexeeyaa. nebi muuse oo masar ku soo laabtay. nebi muuse calayhi salaam markii uu muddo ku sugnaa madyan, waxa uu u xiisay reerkiisa, hooyadii iyo walaalihiisa. kadib markii uu ballankii u fuliyey odaygii, waxa uu ka soo dhaqaajiyey nebi muuse magaalada madyan. waxa uu soo kaxaystay xaaskiisa, waxa uuna dab ka arkay buurta Dhuur Siina. wuxuu xaaskiisa ku yidhi, halkaas igu sii sug, aan ka warkeene. dabkaasi markii uu yimid halkaasi, waxaa looga dhawaaqay dhinaca dooxa midig ee iftiinka ka baxayay. waxaana lagu yidhi, muusow, anigu waxaan ahay rabbiga caalamiinta. allah subxaanah wa tacaala ayaa halkaas kula hadlay nebi muuse, waxaana loo diyaariyey in ummadda loo diray. waxaa lagu yidhi, usha aad sidato dhulka ku rid. kadib ushii waxay isu beddeshay abeeso. kolkaas ayuu nebi muuse baqay. waxaana lagu yidhi, ha ka baqin, aamin baad tahay. sidoo kale nebi muuse waxaa la tusay mucjiso labaad oo waxaa lagu yidhi, gacantaad jeebkaaga geli, waxay soo baxaysaa iyadoo iftiimaysa. kadib nebi muuse calayhi salaam waxaa loo diray fircoon iyo qoomkiisa in ay dacwada gaarsiiyaan. markaas buu nebi muuse yidhi, rabbiyow, aniga qof ayaan ka dilay dadkaasi, waxaana ka baqayaa in ay i dilaan. walaalkay haaruun ayaa iga iftahansan ee isagu ii raaci si uu garab iyo gaashaan iigu noqdo. ilaahay ayaa ka aqbalay codsigii nebi muuse, waxaana lagu yidhi, waxaan cududaada ku adkayn doonaa walaalkaaga, waxaannu idin yeeli doonaa awood, ee aayadahayga ula taga. idinka iyo kuwa idin raacay ayaa guulaysan doona. waxaa kaloo lagu yidhi, markaad fircoon u tagtaan kula hadla hadal dabacsan. nebi muuse oo hortegay fircoon.
nebi muuse oo uu la socdo walaalkiisa haaruun waxay u tageen fircoon waxayna ku yidhaahdeen waxaan nahay rusushii allah ee reer bani israa'iilna raaci oo addoonsiga iyo ciqaabta ka dhaaf waxaynu kuula nimid mucjiso xagga rabbi ka socota nabadgelyo dushiisa ah ahaato ciddii hanuunka raacda ciddii alle beenisa waxay dusheeda ahaan doontaa cadaab fircoon baa la soo booday rabbigiinnu waa kuma muusow rabbigeennu waa ilaaha wax walba siiya abuurkiisa ku munaasabka ahaa kadibna jiheeya fircoon baa yidhi bal ummadihii hore arrinkooda ka waran oo maxaa lagu halaagay kolkaasuu nebi muuse yidhi cilmigooda alle xaggiisa ayuu jiraa oo lowxul maxfuudka ayay ku qoran tahay waa allihii dhulka idinka dhigay gogol wuxuu ka bixiyey dhulka waddooyin xagga korena biyo ayuu ka soo dejiyey oo waxaynu ka soo saarnay noocyo dhir ah oo kala baxsan fircoon waxa uu yidhi haddii uu hadalkaaga dhab yahay bal noo keen calaamad tusaysa dhab ahaanshaha hadalkaaga nebi muuse waxa uu dhulka dhigay ushii waxayna isu beddeshay abeeso haddana gacantiisa ayuu jeebka geliyey wuxuuna soo bixiyey iyadoo cad oo ifaysa kadib fircoon waxa uu yidhi muuse ma wuxuu isu beddelay sixiroole oo iminka ma wuxuu doonayaa in uu magaalada nooga saaro sixirkiisa fircoon oo nebi muuse la hadlaya ayaa yidhi muusow maalinta aad rabto qabso waxaan kuula iman doonaa wixii sixiroolayaal ah oo magaalada ku sugan nebi muuse waxa uu la ballamay in maalinka ciidda la isu yimaado si dad badan ay u yimaadaan goobta dadkii baa arla kasta ka wada yimid si ay u daawadaan waxaa dhex mari doona nebi muuse iyo sixiroolayaasha fircoon waxaa goobta yimid sixiroolayaashii fircoon waxayna fircoon ku yidhaahdeen wax abaalgud ah miyaan leenahay haddaynu ka adkaano muuse kolkaas ayuu fircoon ku jawaabay haa waxaad ka mid noqon doontaan kuwa iigu dhow intaa kadib sixiroolayaashii ayaa ku yidhi nebi muuse ma adiga ayaa bilaabaya mise annaga nebi muuse waxa uu ugu jawaabay idinka ku hormara kadib sixiroolayaashii waxay goobta ku soo tuureen ulo iyo xargo goobtiina waxay isku beddeshay meel ay buuxdhaafiyeen masas iyo abeesooyin fircoon iyo qoomkiisa ayaa si weyn ugu farxay arrinkaas nebi muuse calayhi salaam waxa uu dareemay xoogaa cabsi ah kadib allah ayaa u waxyooday ha cabsan adiga ayaa gacanta sare leh kadib nebi muuse waxaa la faray in uu dhulka dhigo usha uu sitay waxayna ushii isku beddeshay abeeso weyn oo mid u cuntay ulihii iyo xargihii masaska ahaa ee sixiroolayaasha soo rideen kadib ushii ayuu si deggan u soo qabtay nebi muuse halkaas waxaa sixiroolayaashii ugu caddaatay in muuse uu yahay nebi xagga allah laga soo diray arrinkuna uu sixir ka weyn yahay oo awoodda rabbi ay meesha timid waxaana wada sujuuday sixiroolayaashii oo yidhi waxaynu rumaynay rabbiga caalamiinta fircoon oo tallaabadaasi ka carooday ayaa ugu goodiyey inuu gacmaha iyo lugaha ka jari doono fircoon oo badda lagu halaagay markii mucjisooyinkaas la tusay fircoon ayuu ka madax adeegay allah waxa uu ku imtixaanay masar iyo dhulkii fircoon ka talin jiray abaar ayax xasharaad kala duwan iyo biyaha ay cabi jireen oo dhiig isku beddelay mar kasta waxay dhihi jireen muusow dhibtaas alle noo bari in uu naga qaado waynu rumayn doonaaye balse ma aysan rumayn waxayna sii wateen gaalnimadooda allah subxaanahu wa tacaala ayaa nebi muuse u waxyooday in isaga iyo reer bani israa'iil ay ka baxaan masar waxaana bixitaankooda ka warhelay fircoon oo soo daba dhigtay ilaa nebi muuse iyo reer bani israa'iil ay ka soo gaaraan badda qarkeeda nebi muuse iyo qoomkiisa waxay dhexda u galeen badda iyo fircoon balse allah waxa uu ku amray nebi muuse in uu badda ul ku dhufto waxaana ka dilaacay waddo weyn oo la mari karo nebi muuse iyo qoomkiisa waxay ka gudbeen waddadii fircoon ayaa isaguna soo dabagalay kolkii isaga iyo ciidankiisa ay soo galeen ayaa baddii isu timid oo sideedii ku soo noqotay halkaas ayayna ku halaagsameen fircoon iyo qoomkiisa nebi muuse iyo dadkii la socdayna ilaahay ayaa badbaadiyey allah subxaanahu wa tacaala markii uu halaagay fircoon waxa uu reebay jidhkiisa si ay cibro ugu noqoto dadka kale nebi muuse iyo reer bani israa'iil ayaa dhulkii u haray waxaana la siiyey towraad nebi muuse
iyo nebi haaruun waxay ku dadaaleen dacwada alle iyo in reer bani israa'iil ay caabudaan allah oo keliya. nebi muuse oo ku maqan halkii waxyigu ku soo degi jiray reer bani israa'iil oo ku dhaafay nebi haaruun ayaa waxaa yimid nin la yidhaahdo saamiri oo baadi iyo dembi ku riday dadkii. waxa uu sameeyey ninkii shayqaab dibi leh, waxa uuna u sheegay reer bani israa'iil in dibigan uu yahay ilaahoodii iyo ilaaha muuse. nebi haaruun ayaa marar badan waaniyey qowmka una sheegay in allihii abuuray uu yahay kii badbaadiyey. nebi muuse markii uu yimid waxa uu la anfariiray, waxay ku dhaqaaqeen qowmkiisa, wuxuuna gubay dibbigii. wuxuu ninkii saamiri ahaana ku habaaray in uu ummadda ka dhex baxo oo aan la taaban karin. nebi muuse calayhi salaam waxa uu soo xushay 7 nin si ay alle ugu toobad keenaan. nebi muuse waxa uu muddo ugu yeerayay reer bani israa'iil in ay diinta soo galaan oo ay qaataan amarka allah. qisadii saca iyo reer bani israa'iil. xilligii nebi muuse calayhi salaam waxaa dhacday in nin hantiile ah oo reer bani israa'iil ka mid ah la dilay, waxaana lagu wareeray cidda dishay ninkan. markaas bay reer bani israa'iil u tageen nebi muuse ayaa alle baryey si loo tuso ninkii dilka geystay. allah ayaa faray reer bani israa'iil in ay qalaan neef loq ah. reer bani israa'iil waxay ku warceliyeen, ma nagu jeesjeesaysaa muusow? nebi muuse waxa uu yidhi, ilaahay ayaan ka magan galay in aan jaahiliinta ka mid noqdo. reer bani israa'iil arrinkii way isku adkeeyeen. waxaa loo diray lo', balse waxay ku yidhaahdeen nebi muusow rabbi noo tuug si uu noogu caddeeyo tilmaanta sacaasi. waxaa loo sheegay in neefku uu yahay mid aan duq ahayn oo aan yarayn, labadaas ayay u dhaxaysaa. haddana waxay codsadeen in neefkaas midabkiisa loo sheego. waxaa loo sheegay in ay tahay sac boora ah oo boornimadeedu daran tahay oo cajabisa. kuwa eega waxay mar kale soo celiyeen su'aal, alle noo bari muusow ha noo caddeeyo waxay tahay, maxaa yeelay waxaa iskaga kaana shabahday loda, hadduu alle doonana waan ku hagaagaynaa. waxaa lagu yidhi, waa neef lo' ah oo aan laylanayn oo dhulka qoda, beertana ma waraabiso, waana mid aan ceeb lahayn, midabkeeduna saafi yahay. markaas bay soo heleen neefkii, waana la qalay. gabal ama waslad ka mid ah neefka ayaa ka faray in lagu dhufto ninkii meydka ahaa. kadib allah ayaa soo nooleeyey ninkii, waxaana lagu yidhi, yaa ku dilay hebelow? kolkaas ayuu sheegay ninkii dilay oo ahaa wiil uu adeer u ahaa. sidaas ayuu alle u soo nooleeyaa dadka dhintay. nebi muuse iyo khadir. maalin maalmaha ka mid ah, nebi muuse oo u khudbaynaya reer bani israa'iil ayaa waxaa la weydiiyey, yaa ugu aqoon badan dadka dhulka saaran? kolkaas ayuu nebi muuse ku jawaabay, aniga. allah subxaanahu wa tacaala ayaa u sheegay nebi muuse in uu jiro nin garanaya wax aanu nebi muuse aqoon, waana khadir. sidoo kale nebi muuse waxaa la faray in uu horay u qaato kalluun. marka uu kalluunka waayo, halkii uu ku waayo ayaa loogu sheegay khadir. nebi muuse markii uu arkay khadir, waxa uu ku yidhi, miyaan ku raacaa si aan cilmigaaga wax uga barto? khadir baa ku warceliyey, adiga ma karaysid la jirkayga sabir. nebi muuse ayaa yidhi, waad i heli haddii alle idmo mid ku samra oo aan kugu caasiyin arrin. waxaa lagu ballamay in nebi muuse uusan wax su'aal ah weydiin karin khadir ilaa uu isaga ugu sheego waxay isla raaceen doon. kolkaas buu khadir rujiyey doontii. markaas buu nebi muuse yidhi, ma waxaad u dan leedahay inaad dadkeeda maashayso? kolkaas baa la xusuusiyey nebi muuse ballantii uu galay ee ahayd in uusan wax su'aal ah keenin. mar kale ayay dhaqaajiyeen ilaa ay la kulmaan wiil. khadir baa waxa uu dilay wiilkii. kolkaas baa nebi muuse yidhi, ma waxaad dishay naf daahir ah oo aan naf dilin? waxaad la timid shay la kahdo. markaas buu khadir yidhi, miyaanan ku odhan adigu ma karaysid la jirkayga samir? nebi muuse ayaa ku warceliyey, haddaan wax kale ku weydiiyo ha ila saaxiibin, waxaad gaadhay garowsha xaggayga ahe. intaysa soo raaceen waxay yimaadeen magaalo. kolkaas bay dadkii magaalada warsadeen cunto, balse dadkii magaalada ayaa diiday inay martigeliyaan nebi muuse iyo khadir. waxay heleen derbi ku dhow in uu soo dumo oo sii ciiraya. kolkaasuu toosiyey khadir. markaas buu nebi
muuse yidhi, haddii aad doonayso waxaad hagaajintiisa ka qaadi lahayd mushqaayad ujuuro. markaas buu Khadir u sheegay in kulankoodu uu halkaas ku dhammaaday. waxa uu u sharaxay dhacdooyinkii uu garan waayey, waxa uuna yidhi, doonto waxaa iska lahaa dad masaakiin ah oo badda ka shaqaysta, waxaana hortooda jiray boqor qaata doon kasta oo fayow. waxaana rabay inaan ceeb u sameeyo wiilkana, labadiisa waalida waxay ahaayeen muuminiin, waxaana ka cabsanay in uu ku kallifo oo uu u horseedo xadgudub iyo gaalnimo. waxaanu doonay ilaahoodu inuu u dooriyo mid ka wanaagsan xagga nadaafadda iyo iimaanka iyo u dhowi naxariis. tan derbiga gidaarka waxaa lahaa oo u sugnaaday 2 wiil oo agoon ah, kuwaas oo magaalada joogay, hoostiisana waxaa ugu jiray kayd, waalidkoodana mid wanaagsan buu ahaa. ilaahaagu wuxuu doonay in ay gaaraan wakhtigii ay kala soo bixi karayeen oo ay kaydkooda la soo baxaan. waa raxmad xagga Rabbi ka timid, arrinku iraadadayda oo keliya ma ahayn inta aan kuu sheegay, waa fadiraadda shaygii aad ku sabri kari weyday. geeridii Nebi Muuse. nebi muuse calayhi salaam muddo badan ayuu la joogay reer bani Israa'iil. waxa uu ku bixiyey dadaal weyn si ay diinta u qabsadaan. waxa uu la kulmay imtixaanaad kala duwan, ummaddiisuna waxay ka mid noqotay ummadaha ugu tiro badan. markii Alle doonay in Nebi Muuse nafta laga qaado, waxa uu u soo diray malakul mowt. malaga markii uu u yimid Nebi Muuse, waxa uu ku yidhi, muusow, rabbigaaga ajiib. kolkaas ayuu Nebi Muuse isha ka dhuftay malagii oo ishiisa soo dhacday. malagii ayaa yidhi, rabbiyow, waxaad ii dirtay nin aan dhimasho rabin. malagii ayaa mar labaad la soo diray oo lagu yidhi, u sheeg muuse, haddii aad doonayso inaadan dhiman, gacantaada waxaad saartaa dibbigaas haragiisa. wixii tin kasta oo ka hoos marta gacantaada waa sanad aad noolaqnayso. Nebi Muuse ayaa yidhi, haddaan sannadahaas badan noolaado maxaa ka dambeeya? waad dhimanayaa. Nebi Muuse ayaa malagii ku yidhi, hadda iga qaad nafta. waxa uu Nebi Muuse weydiistay Allah in lagu aaso meel u dhow baytalmaqdes. muddo kadib Nebi Haaruun ayaa geeriyooday. duriyadda reer bani Israa'iil way badatay ilaa ay ka mid noqotay ummadaha ugu tirada badan. qur-aanka kariimka ah meelo aad u badan ayaa lagu sheegay qisada Nebi Muuse, waxaana ka mid ah ma ku soo gaaray warkii Nebi Muuse goortii uu ugu yeeray rabbigii toggii la hufay ee dhowaa ahaa magaciisa, kuna yidhi, u tag Fircoon, wuu xadgudbaye ku dheh, ma kuu sugnaatay inaad daahirnaato oo hufnaato, anigana aan kugu hanuuniyo rabbiga jidkiisa oo aad ka cabsato. wuxuu tusiyey aayad mucjiso weyn, wuu beeniyey oo caasiyey Fircoon, wuuna jeestay isaga oo ordaya. kolkaasuu kulmiyey dadkii kuna qayliyey, wuxuu yidhi, aniga unbaa ah rabbigiina koraynta badnaa. markaasaa eebbe qabtay oo ciqaabay aakhiro iyo adduuba. arrintaasina cibro wax ku qaadasho ayaa ugu sugan ruuxii Alle ka baqaya. maxaynu ka baran karnaa qisadani? hal Allah subxaanah wa tacaala waxa uu dhowraa oo ilaaliyaa addoommadiisa. 2 eebbe waxa uu u naxariistaa qofkii arrinkiisa u dhiibta. 3 Fircoon waxa uu sheegtay in uu yahay rabbiga koonka, haddana waxa uu ka baxsan waayey biyihii lagu halaagay. 4 xishoodku waa muhiim, rag iyo dumarba. 5 ammaanadu waxay ka mid tahay sifooyinkii nebiyada. 6 waa muhiim in loo sabro dhibaatada. 7 daalim kasta waxa uu leeyahay wakhti uu goodhinto. 8 Fircoon waxa uu ka mid ahaa keligii taliyaashii ugu liitay ee soo maray dunida. 9 qofkii Alle talo saartay ayaa badbaadaya. halkaa waxaa ku eg qisadii Nebi Muuse iyo buuggeenii qisooyinka nebiyada. waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdi Cadiim Ahmed. inta aan ku kulmi doono buuga xiga, waxaa idin leeyahay nabadiino.